السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا دي سلامية صحابتي دقالقة ما شاء الله ميل كستoo adduunka ka joogtaan. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. halka waxaan rabaa inaan igula wadaago wax yar oo waxaan ka sameynayaa maraq soup maasha allah aad u macaan badan haba yaraatee wax hiliba ma leh. intaas qudaartaasaan ka sameynayaa. halkan waxaa iigu jira misir shiidan geedkaas allahumma salli calaa maxamed baradhada intaas xabad basal ah jabsan jabiil ah jab sakuni ah laba xabo oo basbaas cagaara ama se qaji qof walba siduu u fahmayo maasha allah. halka waxaan ku haystaa toon ayadana toonta anigu aan isticmaalo maasha allah waa noocaas bio ama organic qof walba siduu u fahmayo bio ama organic maasha allah. aad iyo aad baan idin salaamay insha allah. waan xoog baan isaga dhaqayaa qudaartan waxaan ku dhaqayaa baking soda iyo khalka cad aad markaan soo dhaqo oon isku soo wada jarjaro insha allah. waa kaas ay la socda maasha allah. waatan qudaartii baan soo dhaqay toonta waatan halahana ii noqotay. marka toonta ma jarjarayo mana tumayo laana waan shiilaya maraqa insha allah. marka waa kaas. marka haddii qofka ilmo yaryar haysto basbaasta wuu ka dhaafi karaa okay. ama wax yar oo beenbeen halahaas wax leegoon ilmaha dhibaynin ayuu ku samaysan karaa. haddii kale dad waaweyn cabayaana waa kaas maasha allah. hadda waan biyeynayaa insha allah. markuu bislaado iyo haddana qaabkan misirta shiidan ugu dari doono insha allah idin tusayaa. marka waa isku soo laabasho wanaagsan walaala oonan malaha aan kala fahansanayn anigu waan u malaynayo qamadiga iyo sareenka iyo heeda hal shay iskugu wada yeedho waxay wada dhahaan qamadi markaan arkayo. marka calashan dadka markay ayama karsadaan ama dad meelahaas social media ku jiro ka hadlayaan arko tan waxaa la dhahaa heed san bay u taalaa. tan idinku soo dhaweeya kamarada waa taas waa heed kana waxa weeyaan qamadi sidan buu u egyahay. kana waxaa la dhahaa sareen okay. isku wada magac ma aha. sareenka magaciisu waa kaas okay waa magacaas. qamadiga magaca ku qoran waa sidaas sorry si fiican u qabto waa kaas heedana magaca af jarmal hadda wadankan joogo ku qoran waa sidan. marka walaalahay waxa way kala faa'iido badan yihiin subxaanallah geedahani. horta geedkana number 1 ah. marka kan ayaa ku xiga oo calaashan uu ku riixayaa way isku celceliyaan labadoodu sababtoo labaduba aad bay u faa'iido badan yihiin waa heeda iyo sareenka maasha allah. sababtoo labaduba waxay leeyihiin way marka la kariyo calaashan qaasatan qaabka rabadaantii loo karsado oo kale marka loo kariyo way dhareeraan dhareer yar bay leeyihiin ama way sii jiitaan. kan laftigiisu calaashan waa cunto fiican oo caafimaad ah oo kasoo baxda dhulka laakiin labadan geed ayaa ka caafimaad badan. marka walaalahay sidaas loo kala saaro. mahmaah yar oo Soomaaliyeed waxay tiraahdaa raggu magaca guud iyo muuqa uu ka siman yahay. kulay waxa laga wada qof walba uu fahansan yahay anoo qof u jeedaan kale hay jirin laakiin mahmaah calaashan meesha ku imaatay saasay kala yihiin bay iga tahay geedahani. marka insha allah ama nimcadan ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhulka inooga soo saaray. Soomaali waxaan nahay dadka ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu siiyay dhulka ugu wanaagsan iyo nimcada ugu wanaagsan laakiin waxayna kama faa'iideysano. hadda waxaad arkaysaa dadkii baadiyaha joogay oo intay maxay ahayn masangadoodii iyo sareenkoodii iyo heedoodii iyo waxoodii u baxay ay magaalada u iibgeeyaan bariis ku soo gadanaayo subxaanallah. taasina waa waxaan u maleynayaa ma garanayo waa dhibaato in haysata. marka waxaan leeyahay ii sheeg ha loo noqdo cuntooyinkeena dabiiciga ah. cuntooyinkan wax ka caafimaad badan ma jirto. kan hadda waan sameynayaa si wax yar baan calaashan ka sameynayaa kaabish baan ku duubaya waad ila arkaysaan. noocyadana qamadigan iyo heedana qaabkan u sameyn doona insha allah waan idila wadaagayaa maadaama bir badan soo dhowdahay. dad badan oo waalidiin oo wadankan joogan cuntooyinka kale calaashan ay dhib ku keenayaan ama gastriga qabo ama sonkor qabo ayaa buuxo. marka insha allah ka faa'iideystaan ilmaha yaryar xataa ilmaheena han wadanka ku haysana xataa waxa fiican inaan cuntooyinka caafimaad kale dhulkeena ka soo baxo aan barno. qaasatan geedkan hadda sareenka waxa maxay daanay loo karin karaa sida bariiska. wallahi bariiska waad kaga maarmaysaa baalkaas dad si sax ah u karisid subxaanallah aad buu macaan badan yahay. marka walaalaha markii uu bislaaday sabta waan ka dansanayaa waan fiiriyaa insha allah mar dhow. halkan waxaan ku soo fiirsaday waxaan ku xabad basal soo goostay
وأنا هذا سرين كأني ما رمنا إنا كده إنه محشي وما سأندو دوبنا كابش كدوبنا إن شاء الله. قدر سنة قاعدة ير وحواجي القلوب ييسون اسكتها خلاص. ييسون كل يوم ما قرنا يفسون ما له حلا قد والله يقرأ عليها هذا. ييسون كمع معانا وكل حتى والله قدر صدق. أوكي. كان هذا مركب حسنين يا بقولكي أو المخرج بيكون ذي وصار دقيقة مصر رينكي أيان هذا وحي عمله أيان هذا وحي ربعنا كله marka inta hore si laba saddex xabo si sax ah idin tusaya qaabka loo duubayo insha Allah qofka garanayo ba garanaya kan garanayna ha ka faa'iideysto sidaas aan uga soo duubaya labada gees ma sha Allah waa kaas bartaas ku gashanaya waa inta aad ma sha Allah ya caafimaad leh marka waxa la rabaa si aad u yara dhoojisid si uu kaaga furfuran hadhow wayna la dhoojiyo insha Allah halkaas sidaas xabadaas wax yar iga yara waxaad moodaa inay yara faxeen dabacsan tahay marka insha Allah walaalahay waad aragteen saasaan ku soo wadayaa waan ku soo dhameystirayaa insha Allah وفصل حري أوفن كان هذا قلنا يا وسوهورة يا إن شاء الله ولا نتوصل يسوق الصبح إن شاء الله سلسة عشان أحسن ما شاء الله مرق واكر سنة وبسلاضي لكن وحن إلا وبيهد وحيرة وحن قدر يبيهد قادة أفكي ذا يرهورين تعليق أو حل بدء لأنه وفي عنتهاي عافمات كأدو وفي عنتهاي ما شاء الله والتصقادية اللي وانكسو صاري muhiimadu ma aha wax weyn oo khatar oo balaa ka dhacday ma aha kaliya muhiimada aan ka wada wax weeyaan cunto yar caafimaad leh bas wax hilib iyo wax baruur leh iyo wax saliid iyo waxaas ay ku jiraan muhiimada aan ka leeyahay waa intaas. Assalaamu calaykum.